Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta ku xidhan kanaalka Dayax-tag and Vlog ku soo dhawaada muuqaal cusub ehel iyo asxaabba. Waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo Facebook history baan ka hadlayaa. Waan wada ognahay waxyaabo macluumaad gaar ah baynu kusoo share garaynaa, sawirradeena ha noqoto, warbixino kale qoraal ah ha noqoto. Sidaasay tahay waxaa jirta inaad rabto inaadan qofkaasi daawan qof gaara, shakhsi gaara ama dad badaniba waad rabto inaad dadka ka xidho iyo inaad dad kale u furto. Labadaas system-ba waxaan doonaynaa in isla eegno iyo xoogaa macluumaad yar oo kala dheer. Intaynaan casharka bilaabin, haddaad kanaalka ku cusub tahay ku soo bir oo subscribe saar, muuqaalkana like saar, mahadsanid. casharkeena toos u bilaabano. Facebook-aad sidaa u tegaysaa, history-gan ka hadlayaa waa wada garanaysaa, waa qaybta yar ee sare. Marka aynu bilowno waxaad aadaysaa saddexda liides dul saaran, waxaad sii tegaysaa settingskaad sii tegaysaa privacy, waxaad ku sii dhufanaysaa settingskaad sii tegaysaa kor ayaad u baxaysaa, xagga waxaad ka eegaysaa history settings baad aadaysaa. Halkan dhowr option baynu ka haysanaa. Waa history privacy-ga, waxaad halkaa aad eegi kartaa, aad maamuli kartaa qofka history-gaaga arki kara. Waxaad dooran kartaa horta sina ognayd 24 saac bay joogtaa saarnaanaysa halkaa. Ma public bad ka dhigi, ma asxaabtaada kaliyaad ka dhigi. Halkan waxaad sii dooran kartaa cidda aad choose who to hide your cidaad ka qarin karto. Halkanna waa cidaad u ogolaan karto. Choose people to share your qaar kuwan waaba inay la wadaagaan iyagu cid kale. Halkan hoose history mute waa dadka aad adigu rabto inaadan aragkooda. Xagga hoose waan ku arki doonaa. Markaa halkan waxaad dooran kartaa dad baad xidhi kartaa, intaasaad daawan karto iyo intaas ma daawan karto. Okay, taa waynu isla fahanay. Talabaad waxa weeye who can share your history, cidda dad kale la wadaagi karta sidii optionadii oo kale leedahay. Halkan waxaan halkan waxaad arkaysaa inaad ogolaanayso dadka samayn kara inay wax share garayaan. Ma ogoli, anigu baan ka wadaa, keligii baa doortay inaanay cid kale sawirkaan anigu leeyahay meelaha la wadaagin. Halkan wuxuu ku leeyahay allow people to share your histories if you mention them. Yacni dadka aad dooranayso anigu adaa dooranaya, deetana kuwaasaa share garaynaya. Marka ma rabo inaan cid u doorto, ha igu koobnaadaan aniga. Halkan waxa weeye history-gii aad dhigtay waxa weeye inaad kaydsato oo qaybta archive-ka ku galo. haddaad halkaa furto imika saa ma helayo, laakiin markaan saa u idhaa qaybta archive-yada ayuu ii geliyaa, meel gaara baa laga dhigayaa. Ta ku sii xigta waa highlights-ka weeye. Xagga hoose waxaa ku qoran decide who can see history highlights. Adaa go'aansanayo qofka aad rabto. Asxaabteedii u yaalaa. Halkaa kasta markaad eegto waxaad geyn kartaa, waxaad dooran kartaa choose people to show your highlights to cidaad adigu tusi karto ay weeye. Ta ku xigtaana ka hide your highlights from waa kuwa aad adigu ka qarinayso. Qolana adaa u ogolaanaya daawada, qolana adaa ka xidhaya. Okay, tan kale muted kaasina eegna hada history you have muted. Halkan markaan ku dhufano imika halkan cidma joogto, laakiin marka aan shakhsi iska soo xidhno bal aan tusaale kusoo bixino. Imika xagga ayaynu eegaynaa balkaadi. Waxaynu eegaynaa ninkaa odayga Cumar baan odhanayaa iga xidh warkiisa. Mute Cumar, halkaasaan mute kaa geliyey. You will stop seeing their history but yacni waad iska xidhay laakiin weli saaxiib waad la ahaan kartaa Cumar weeye. Bal aynu ku noqono inuu halkii haddaba inoo dhigay Cumar inuu ku tusayo halkii. Waxaynu aadaynay history-gan aadaynay qaybta hoose sii dooranaynay. Halkaa waa ka Cumar Cabdiraxmaan waa muted weeye. Haddana unmute idhaa wuu ka baxayaa.
ka baxo kusoo yar noqo saasoo kaga baxaya. Waxaan warkaygu idinku batay intaasoo cashar ku saabsanaa. Mahadsanidin asxaabtii hore ee kanaalka ku xidhnayd. Intiina cusub ee kusoo biirtay waa mahadsantihiin. Hadday maanta kugu horeyso imika daawanaysana fadlan kusoo biir.